بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عكرمة بن أبي جهل سيأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا فلا تصبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت محمد رسول الله. أحبتي في الله، waxaanu ku soo jirnay kitaabkeeni suwarun min xayaati asaxaaba ridwaanullaahi calayhim ajmaciin. waxaanu soo gaarnay darsiga 61 ee kitaabkeenna. waxa uuna ka bilaaban doonaa saxaabiga la yihahdo cikrimatu bnu abi jahlin radia allaahu canhu wa ardaah. cikrimo intaanan u gelin darsigii shalay inoogu dambeeyey, waxaynu kusoo gabagabaynoon ooga hadalnay saxaabiga la yihahdo salmaan alfaris radia allaahu canhu wa ardaah. haddaynu dib ugu yaro laabano, salmaan qisaskiisa aada bay u badan yihiin, waana qisas lagu cibro qaato oona mudan in lagu cibro qaato. waxaa ka mid ah qisaskiisa, ninkaasi saynu soo marnay waa uu soo islaamay. marka uu soo islaamay, addoonnimadiibuu kusii baaqi ahaa ilaa dagaalkii beder iyo uxud ay dhaafeen oo uusan ka qeybgelin oo uu ku mashquulay addoonnimadii. suubanuhu sala allahu calayhi wasalam ayaa ku yidhi, niyow maad la heshiisid ood qarashi wax u sheegtid ninkan yahuudig ahood muxuu ahay aada addoonka u tahay. dabadeedna ninkii buu la heshiiyey. nin yahuudi oo dhib badan buu ahay. wuxuu yidhi, niyow inaad xor noqoto haddaad rabto waa inaad ii tallaashaa 300 oo geed oo timir ah iyo 40 oo qiyadood oo lacaga waa inaad ii keentaa. kadibna suuragal ma ahayn oo arrin aada u adag buu ahaa. nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi, rasuulka allow, dee ninkii sidaa buu igu yidhi. nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtii buu u dhawaaqay oo wuxuu yidhi, ninkan hala garab istaago, walaalkiina hala caawiyo. kadibna geedihii baa loo soo qaraamo loo soo aruuriyey. kan 20 keeno, kan 10 keeno, kan 5 keeno. waa geedo yaryar oo timir oo la talaalayo. dabadeedna nabiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku yidhi, orodo 300 oo god soo qod buu yidhi. orod geedihii meesha lagu tallaali lahaa. waa uu baxay oo godadkii buu soo qoday. godad badan bay ahaayeena saxaabadii qaar ka mid ah ku caawiyey. godadkii markuu soo dhammeeyey qoditaankooda, nabiga ayuu u yimid calayhi salaatu wasalaam. dabadeedna nabiga raacay, gacantiisa barakaysan buu nabiga geedihii godka kusoo wada geliyey. saxaabadana way u dhidhiibayeen. intaanan meeshaas ka gudbin, meeshaas waxaa laga qaadanayaa muslimiinta inay isu hiiliyaan oo isu gargaaraan oo iscaawiyaan. waxaa laga qaadanayaa nabiga sala allahu caleyh wasalam naxariistiisa iyo muxuu ahaaye si ugu turayo ugu dhimrinayay saxaabadiisa. ninkan inuu addoonnimada ka saaruu doonaya, gacantiisi buu nabigu ku shaqaynaya. madaxdeennu maanta lagama yaabo beer inay kuu tallaalaan, iska daayo inay xitaa kusoo salaamaan. waa aad bay u adagtay, waa mustaxiil. nabiga sala allahu caleyh wasalam beertii isagaa gacantiisa ugu soo tallaalay gaalkii yahuudiga ahaa si ninkan muslimka uu xur u noqdo. dabadeedna waxaa dhammaatay timirtii iyo waa laga soo dhammaaday qeybtii ahayd, lacagtii baa soo hartay. ninkii salmaanha nabigu u yimid oo wuxuu yihi, nabiga ilaahayow, haddee nin walaaladiisa ay muslimiin yihiin ma hooge, beertii waan ku soo guulaysanay dhankaasi ee waxaa igu dhiman buu yidhi lacagtii 40 oo qiyadood. nabigu sala allahu caleyh wasalam wax ukun la eg oo dahaba buu u dhiibo, orodoo tan isaga bixi buu yidhi lacagtana. markaasuu salmaan yidhi, rasuulka ilaahayow, lacagta laga raba aad bay u fara badan tahay, tani maxay ka qaadaa? kuwani maxay ka gooyaan? maxay ka tari karaan? nabigu wuxuu yidhi, ilaah baa kaa gudaya subxaanahu wa tacaala, ee hadal ha soo celinin, orod qaad. kadibna intii yareed baa ilaahay ku filnaysiyo lacagtii laga rabay sidii bay oga baxday. salmaanulfarisna sidii buu ku xuroobay. dabadeedna muddo ayuu sii noolaa ilaa mar dambe uu geeriyooday. meel yidhahda madaa'im buuna ku xabaalan yahay sida ahlu taariikhu ay sheegeen. qisadiisu waxyaabaha laga qaadanayo walaalayaal waxaa ka mid ah in diinta dacwada iyo barashadeeda waqti dheer la geliyo, loo sabro, loo dulqaato, rafaad iyo xirnimo iyo meelo badan loo maro ayaa laga qaadanaya. waxaa kaloo qisada laga qaadanayaa cidda dadaasho in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu garab ku siinayo oo marka dambe guul i gargaar uu gaarahayo. waquulu icmaluu fasayara allaahu camalakum. waxyaabaha qisadaas laga qaadanaya waxaa ka mid ah sabarka iyo dulqaadku inuu yahay waxa guusha lagu gaaro. ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dambeyn wuxuu siiyey saxaabigan
wadankii uu shalay ka soo hijrooday oo asnaamtii baktiga lagu caawudi jiray inuu madaxweyne ka noqdo oo waali ka noqdo oo muddo u xukumo dib buu u qabsaday dhulka isaga ahaa markay muslimiinta la wareegeen. da-diisu culammada waa isku khilaafeen, qaar waxay dhaheen 70, qaar 80. da-diisu inta badan la iskuma raacin, laakiin waxaa loo badan yahay inuusan 100 gaarin. riwaayaadka dhahaya 200 buu gaaray, 300 buu gaaray, 400 ma sugno, waa daciif. intaas haddaynu ka gudubno waxaa loo baahan yahay annagana inaynu ku dayanno oo waqti badan aynu gelino diinta. waxaa laga yaabaa darsi 15 daqiiqo soconayo inaad waqti u wayso, maantao dhan adduunya aad raadinayso, waa nasiib darrow. war adduunyadaada iyo aakhiradaada isku wado, diintaada adigoo baranayo haddana shaqayso, adigoo diinta dadka baraya haddana xamaalo. waxaani waa isku dhexwadi karaa, isku dhexwado, aakhiradaadana midigta ku qabso. wajazaakum allahu khayra. cikrimatu bn abi jahl ayaynu bilaabaynaa, saxaabiga la yiraahdo. sida ka muuqataba magaciisa nin dhib badan baa dhalay oo abujahl la dhihi jiray, waa fircawnu haadihi lumma calayhi lacnatullah. nin dhib badan oo madax ahaa oo aadna gaalada ay oga dambeeyeen baa dhalay. taas waxay ku tusaysaa aayad qur-aanka in badan kusoo noqnoqotay oo yukhriju alxaya min almayiti oo kale. yacni wax dhintay oo gaal aho inkaaru ku dhacday baa ilaahay wuxuu ka soo saarayaa sida abujahl oo kale ah. yuu ilaahay qof nool oo xaya buu ka soo saarayaa oo cikrimo oo kale ah. wayna badan yihiin dad badan oo sida aha. sayaatiikum waxaa idiin imaan doono cikrimatu ayaa idinsoo gaari doono, mu'minan xaal uu yahay mid alle iyo rasuul rumeeyey, muhaajiran xaal uu yahay mid soo hijrooday, ilaah dartiis u soo hijrooday. falaa tasubuu ha habaarina oo waxa ka sheegina abaahu aabbihiis ha caayina. fa ina saba almayiti qof dhintay oo la caayo yu-dii hadalkaasi iyo caayadaasi wuxuu dhibayaa alxaya midkii noolaa, walaa yabluqu almayita kii dhintayna caayadaasi gaari mayso. muxamedun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam, nabigaa hadalkaas yidhi. subano wuxuu yidhi waxaa idiin imaan doona cikrimo oo allah rumeeyey oo muhaajiroo soo hijrooday. falaa tasubuu abaah, saynu gaari doonno inuu islaamo waxaa sabab u noqon doonta xaaskiisa. marka nabigu uu leeyahay gabar daatudiin ee guursada, gabar wanaagsan guursada. marka nabiga uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, gabadha wanaagsan khayr iyo wanaag bay kuu jiidaysaa. mid inkaaru ku dhacday haddaad guursataan hadda dhanka xun bay kuu jiidaysaa. ninkaani ilaahay wuxuu ku irsaaqay oo sabab u noqotay inuu islaamo oo waqti badan gelisay, bal nafteeda halis u gelisay, saan gaari doono gabar muslimad oo uu qabay. marka gabdhaha wanaagsan diinta kaalin weyn bay ku leeyihiin, aad iyo aad bay qiimo u leeyihiin. gabdho sharfan bay ahaayeen, ilaa yowmina haadana way jiraan gabdho wanaagsan. ilaahay ha noo badiyo subxaanahu wa tacaala. wuxuu yidhi nabigu falaa tasubuu abaahu, wiilkan aabbihiisa aan la caynin, maadaama nin dhib badan oo muslimiinta baabiye oo abujahl u dhalay yaan wax laga sheegin. fa ina saba almayiti meydkoo la caayo yu-di alxaya kan noolo wiilkan buu dhibayaa. walaa yabluqu mana gaaraya almayita qof dhintayna caayadaas gaari mayso. xadiis saxiixulbukhaari keyrkiis ku soo aroray nabigu wuxuu dhahayay laa tasubu lamwaat, dadka dhintay waxa ka sheegina. fa inahum qad afdow ilaa maa qadamuu, waxay hormarsadeen bay gaareen. cadaabkii iyo naartii iyo balaayadii shaqaysteen bay gacanta kula jiraane idinku ha caayina, waayo dadka nool ayay dhibaataynaysaa ereygaas. sababtuna way iska caddahay, laakiin inagu soomaali haddaynu nahay dhankaas aad baynu ugu fiicannahayo qof dhintay inta badan soomaalidu waxba kama sheegaan. markaad nooshaysay kuu caayahayaan, ay cidyaha kaaga dhilqinayaan, mar haddaad dhimato waxaa lagu leeyahay maasha allah, isagoo mise ka soo baxay uu dhintay, owliyuu ahaa, saam buu ahaa, aad baa loo ammaanay. mid mooryaan ah oo tuug ah oo heesa ah oo ummadda fasahaadiyey oo weligii salaad tukanin oo caasi waalid ah oo shaytaan ah, markuu baktiyo waxaa laleeyahay owliyu ahayo masjidku ka soo baxay. ma maqasheen hebel? idaacadaha maanta o dhan laga boonboonin. dabcan qof wuxuusan ahayn ha lagu ammaano ma lihin, laakiin keliya waxaan ka wadaa muslimiinta iyo khaasatan dadkeena soomaaliyeed inta badan qof dhintay macaya. marxaban biraakibi almuhaajiri min taxiyati nabiyi licikrima. marxaban soo dhoweyn baa u sugnaatay biraakibi ninka gaadiidka saaran almuhaajiri ee soo hijrooday min taxiyati nabiyi nabiga salaantiisii bay ka mid tahay erayadaasi licikrimata, cikrimatun abijahl nabigu uu ku yidhi. hadal nabigu abujahl wiilkiisan cikrima nabigu uu ku yidhi weeye oo uu ku salaamay.
kaana cikrimo wuxuu ahaa fii awaakhiri alciqdi guntintii aakhirkeedii buu ahaa athaalithi ee saddexaad min cumrihi cumrigiisa. ciqdiga waa 10 sano, 10kii sano waa hal ciqdi, 10ka kalena waa hal ciqdi, 10ka kalena waa hal ciqdi. marka haddii la yiri ciqdigii saddexaad buu ku jiri, tiro 30 buu ku jira laga walaa la soco. ilaan 10 waa soo dhameey, waa ciqdigii koowaad. 10 labaad ciqdigii labaad way uu soo dhameey. 20 10kii saddexaad aakhirkeedii uu ku jiro, tiro 30 waliba aakhir ah. dhowr iyo 20 26 27 meelahaas ku jiray, tiro 30 aakhir ah buu ku jiray, macna da ahaantiisa ninkan. yowma maalin buu da'daasi ahaa sadaca uu la jahray oo uu afka furtay nabiyu raxma naxariista nabigeeda bidacwati alhudaa hanuunka dacwadiisana uu la dhawaaqay iyo walxaqi xaqa hanuunkiisa uu la dhawaaqay. maalinkuu nabiga dhawaaqayay oo uu afka furanayay, wiilkani wiil tiro 30 ku jiru ahaa, 25 iyo waxa ka dambeeya ku jiray macna. wa kaana wiilkani wuxuu ahaa min akrami qurayshin, quraysh midka ugu sharafta badan oo ugu karaamada badan xasaban xagga qadarka. wa agharihim kan ugu badan buu ahaa maalan xagga hantida, nin milyandheere buu ahaa. wa acazihim ninka ugu adag buu ahaa ama ugu qiimaha badan nasaban xagga abtirka, nin qurayshoodoo qiimo badan buu ahaa ninkani. wa kaana jadiiran bihi, wa kaana waxay ahayd jadiiran bihi miday ku habboon tahay u qalanto, ay munaasab u tahay wiilka kani an yuslima inuu islaamo, kamaa aslama say u islaameenba nudaraa'uhu kuwii isaga lamidka ahaa ee la filka ahaa. sida dadka isaga lamidka ahaye sidiisa u qiimaha badnaa bay usoo islaameen, waxaa munaasab u ahayd oo u wanaagsaneyd wiilkan inuu lambar 1 dadka soo islaamay uu ku jiro. dadkaas isaga lamidka ah oo la filka oo la eyniga ah, sida waxaa weeye min amhaali sacd ibn abi waqaas, sacdun abi waqaas iyo muscab ibni cumayr iyo wagayrihima, labadaas wiil keyrkooda oo min abnaa'i lbuyuutaati guryaha wiilashoodii ah, guryihii almarmuuqati farta lagu fiiqayey ee qiimaha badnaa, fii makata makana ku sugnaa. wiilashan sida sacad iyo muscab ibni cumayr iyo say usoo islaameen oo guryo farta lagu fiiqayo qiimo badan ay oga islaameen, wiilkana sidaasoo kale inuu islaamo ayaa munaasab u ahayd. lowlaa abuuhu, laakiin aabbihiis hadduusan jiri lahayn, jawaabulow waa maxduufe, la aslama wuu islaami lahaa. lowlaa abuuhu cikrimatu bn abi jahl, aabbihiisoo abujahl hadduusan noolaan lahayn oo uusan jiri lahayn, la aslama wuu islaami lahaa. laakiin aabbihiisa inkaar hele ku noqday oo uu diiday islaamnimada inuu wiilkan soo galo. faman kumaabaa yakuunu uu noqonayaa haada alabu, aabbahani kuu noqon doonaa inkaar helaha ah oo wiilkan u diiday inuu islaamo sida faciisabay u islaameen. yaa turaa tolkayow, yaa tura waa erey iska halqabsi ah, tolow aabbahan yuu noqon doonaa. innahu ninkaasi ama aabbahaasi jabbaaru maka, maka mutakabirkeedii weeye, al akbaru weynaa. jabbaar waa mid inkaar ku dhacda mutakabir ah, ee al akbaru weynaa. wa zaciimu shirki, shirkiga kii hogaaminayay weeye, al awal ee ugu horeeyey. ninka wabarka ka ahaa ee barasaabka shirkiga ahaa buu ahaa ninkan aabihiis. wa saaxibu nikaali, ciqaabta iyo cadaabka kii u saaxiibka ahaa weeye. alladii ninkaasoo imtixana allaahu eebbaweyne uu ku imtixaanay bibadshihi qabashadiisa iyo dhibaateyntiisu iimaana almu'miniina, mu'miniinta iimaankooda uu ilaahay ku imtixaanay. fathabatuu way sugnaadeen mu'miniintii markuu ninkan dhibaateeyey oo uu la dagaalamay oo uu ciqaabay, iimaankii kama ina noqon oo way sugnaadeen. wakhtabara, eebba wuxuu ku imtixaanay bikaydihi gaalkan hagartiisa iyo hagardaamadiisa iyo makrigiisu sidqa almuuqiniin, kuwa yaqiinsan ilaah jiritaankiisa runtoodii ayuu ilaahay ku imtixaanay. fasadaquu way rumeeyeen allah oo mayna ka laaban. innahu ninkaas dhibka badan abujahlin waa jahliga aabihiis, abujahl wey. wakafaa, intaasaan ugu filan caay iyo ceeb iyo cadaab, intaasaa ugu filan. wax kale uma baahan in abujahl la yidhi ayaa intaasaa ku filanba. haadaa ninkani abujahl ah, abuuhu wiilkan cikrimo aabihiisa weeye. amaa huwa wiilka kani fa cikrimatu bn abi jahl baa la yidhaahdaa. almakhzuumiyu waana reer bani makhzuumo, qoladaasuu ka dhashay, reer bani makhzuum buu kasoo jeedaa macnaha.
axadu sanaadiidi qurayshin quraysh boqoradeedii madaxdeedii buu ka mid yahay almacduudiina ee farakutiriska ahaa wa abrasu fursaaniha kuwa faraslayaalka ah kuwa ugu caansan buu ahaa fursaaniha fursaani qurayshin quraysh kuweeda fardoolayda ah kuwa ugu caansan buu ahaa almarmuuqiina ee farta lagu godahayey almarmuuqiinadan mar walba uu soo celinayo waxaa laga wadaa dadka markay meel joogaan dad magac lahoo maamuusan oo qiimo leh baa jiro farakutiris ah oo goobtay joogaan ka muuqdo hadday cilmi tahay hadday geesnimo tahay hadday dhaqaalo tahay dad farakutiris waxaa jiro xoogaa dadka ka tilmaaman almarmuuqiina marka waa dadka farta lagu godo qiimaha leh buu ka mid ahaa wiilka kani wajada cikrimatu bna abi jahlin nafsahu madfuucan bixukmi zacaamati abiihi wajada cikrimatu bna abi jahlin halkaa ha inoo sii socota insha allahu qisadiisa allah subxaanahu watacaala waxaanu weydiisanaynaa biasmaa'i lxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana waafajiyo uuna naga dhigo kuwo diintiisii u khidmeeyo ilaahi subxaanahu watacaala inta xanuunsan xanuunka ka qaado inta caafimaad qabtan allah u siyaadiyo gabar walaasheen oo aada u xanuunsan baa jirto oo foolanayso oo aada iyo aada looga soo dayrinayo gabadhaas ilaahi subxaanahu watacaala ha caafiyo dabeesha allah ka raaciyo xanuunka hayo ilaahi subxaanahu watacaalana iyadoo nabadda ha kala keeno ha loo soo duceeyo wajazaakum allahu khayra wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh